subax wanaagsan daawadayaal waa xul iyo xaqiiqo idin leh goorsan kuna soo dhawaada Alool TV barnaamijka saaka waxaanu idinku haynaa heshiiska dhexmaray dawladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda Tigray oo heshiis buuxda ku kala saxiixday dalka koonfurta Afrika taariikhdu waa 3 November 2022 gorsheegtu waa 7 subaxnimo geeyga Soomaalida duca qabayaal shaaha soo qaata oo soo dhawaada dawladda Itoobiya iyo ciidamada gobolka Tigray ayaa ku heshiiyay inay joojiyaan colaadda taasoo horumar diblomaasiyadeed oo cajiib ah noqonaysa marka la eego 2 sano ka hor oo uu dhex maray labadan dhinac dagaal galaaftay kumanaan qof malaayiin barakiciyay 100,000 oo kalena ay soo food saartay macaluul toddobaad kadib markii wada hadallada nabadeed oo rasmi ah una dhexdhexaadinayo ururka midowga Afrika ay ka furmeen caasimadda koonfurta Afrika ee Pretoria wuxuu ka kala socota labada dhinac ayaa saxiixay heshiis uu sarkaal ka tirsan midowga Afrika ku tilmaamay joojin joogto ah oo colaadda soo afmeeraysa labada dhinac ee isku haya Itoobiya waxay si rasmi ah ugu heshiiyeen joojinta colaadda iyo sidoo kale in si nidaam leh si habsami leh iyo hubka dhigis leh la isugu dubarido ayuu yiri Olusegun Obasanjo madaxa kooxda dhexdhexaadinta AU-da oo ka hadla xafladda Obasanjo madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa sheegay in heshiiska sidoo kale ay ka mid yihiin soo celinta sharciga iyo kala dambeynta soo celinta adeegyada helitaanka saadka bini'aadamnimo oo aan caqabad lahayn iyo ilaalinta rayidka heshiis lama filayn dhowaan horaantii arbacada AU waxay ku casuuntay warbaahinta waxay ku tilmaamtay warbixin kooban oo Obasanjo garwadeenka ahaa waxay ahayd markii ay munaasabadu bilaabatay qiyaastii 3 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyay ayaa waxaa caddaatay in heshiis xabad joojin ah ay kala saxeexanayaanba xilligan ma aha dhamaadka geedi socodka nabadda hirgelinta heshiiska nabadeed ee maanta la saxeexayo muhiim u ah guulihiisa ayuu yiri Obasanjo oo intaas ku daray in arrintani ay kormeeri doonaan ayna kormeerayaan guddi heer sare ah oo ka socda ururka midowga Afrika wuxuu ku amaanay geedi socodku inuu yahay mid Afrikaan ah oo lagu xalinayo mushkilad Afrikaan ah wakiilka dawladda Itoobiya Redwan Hussein oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa isagu sheegay in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay tahay inay ka dhabeeyaan heshiiska iyo nuxurka heshiiska isagoo arrintaas ka jawaabaya Getachew Reda oo ah afhayeenka mas'uuliyiinta gobolka ayaa ka hadlay dhimashada iyo burburka baaxadda leh ee ka jira gobolkiisa wuxuuna sheegay inay tahay rajo in labada dhinacba ay fulin doonaan ballanqaadkooda xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric aad bay u soo dhaweynaysaa tallaabada ugu horeysa taasoo aan rajeynayno inay bilaabi karaan inay keenaan qaar nasteexo malaayiinta shicibka Itoobiya oo runtii dhibaato soo gaartay inta lagu guda jiray khilaafka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay ciidamo ka socda Eritrea oo ay jaar yihiin Tigray iyo sidoo kale ciidamo ka socda gobolada kale Itoobiya ayaa ka qayb qaatay dagaalka oo dhanka Itoobiya ah Eritrea iyo ciidamada gobolka midkoodna kama qayb galin wada hadallada ka socda koonfur Afrika mana jirin wax hadal ah oo ka soo baxay xafladda oo ku saabsan in ay u hoggaansami doonaan xabad joojinta dagaalkan ayaa ahaa mid uu ka dhashay burbur ba'an oo ka yimid xiriirka u dhaxeeya Tigray iyo dawladda federaalka Itoobiya ee uu ra'iisul wasaare ka yahay Abiy Ahmed heshiiskan ayaan ka hadlin xiisadda siyaasadeed ee qoto dheer ee keenay khilaafka markii hore ururka midowga Afrika ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay diyaar u tahay sii wadida la socoshada geedi socodka nabadda ee Itoobiya si loo helo dimuqraadiyad cadaalad iyo Itoobiya loo dhan yahay taas oo dhalinyarada haweenka iyo ragguba ay si buuxda uga qayb qaadanayaan horumarkeeda kooxda TPLF ayaa ku eedeysay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in uu xukunka dhexe ka dhigay gobollo iyo in uu caburinayo qoomiyadda Tigray halka Abiy uu ku eedeeyay TPLF in ay doonayso inay mar kale dib ugu soo laabato talada dalka qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalku uu horseeday go'doomin dhab ah oo ay ku hayso Tigray taas oo socday muddo ku dhow 2 sanadood iyada oo sahayda bini'aadminimo ee cuntada iyo dawooyinka aan la heli karayn waqtigaas qaar ka mid ah sahayda gargaarka ayaa la geeyay Tigray intii u dhaxaysay March iyo August ee sanadkan xilli xabad joojin ku meel gaar ah ay socotay taas oo burburtay
horaantii bisha Agosto. Laakiin ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in usbuucan hore Tigreega ay ka dhamaatay tallaalka antibiyootiga iyo insulinta. Waxa ay sheegtay in xarumaha caafimaadku ay isticmaaleen dawooyinkii dhaqanka iyo in ay maryo ku duuduubaan nabarrada aan loo heli karin bandage-ka. Dowladda ayaa si joogto ah u beenisay inay xanibtay gargaarka, waxaana sheegtay in ay qaybinayso raashin aynay soo celinayso korontadii iyo adeegyadii kale ee ay siin jirtay deegaanada ay maamusho. Heshiiskan ayaa marka labada dhinac aad ka eegtid aad moodaa mid keliya lagu dadaalay horta in la sameeyo xabad joojinta markaas loo galo qodobada adag. Heshiiskani inuu ahaan karo mid raaga ama mid midho dhala waxay jawaabtiisa xaqiiqadii ay soo baxaysaa marka qodobada rasmiga ah loo galo. Tusaale ahaan, dowladda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxay taagneyd in madaxda gobolka Tigreega laga soo doorto qaabka dowladda federaalka, halka madaxda TPLF ay taagan tahay in iyagu ay dooran yihiin oo ay joogayaan. Qodobada ugu xasaasisan ee lagu kala tegi karo ama heshiiska burburin kara marka la gaadho waxaa ka mid ah madaxda hadda joogta ee TPLF sida Debretsion madaxweynaha iyo afhayeenka Getachew Reda. Madaxdani ma joogi doonaan oo dowladda federaalku ma ogolaan doonaan inay joogaan, mise iyaga laftigooda ayaaba qanci doona oo ogolaan doona in ay khadka ka baxaan amaba ay dub isaga taagaan oo qaar kale oo hadday doonaan ay daaha dabadiisa ka maamulaan ay keenaan. Si kastaba ha ku dhammaatay ee qodobka ugu xasaasisan kaas ayaa ka mid a. Ka kale ka mid a waa qodobka ciidamada. TPLF ciidankeeda ma soo gudbin doontaa? taas hadda hubka dhigis baa layidhi, balse hubka dhigiska yaa sameynaya. Hadda dowladda federaalku laga yaabaa in ay iyadu rabto in ay hubka dhigista sameyso, laakiin dowladda Tigreega iyagu waxay isku arkaan dowlad maamul dowladeed, marka iyagu in ay odhan doonaan annagaa hubka dhigayna, taa laftigeedu waa qodob keeni kara muran iyo khilaaf iyo in uu heshiisku burburo.